siyaasaddan wax walba intaan lugaha u xirnay dadka aan ku hoojinay marmarka qaarkood inaan xag uga sii jeesan karno oo wanaaga dadka waxa uu ku jiraahay aan ammaani karna u baahan marka mashruuca booqashadii jigjigo mashruuc guuleed oo ah dawladnimada mas'uula nooga saaran dalkan iyo shacabkiisa dadka Soomaalida ee dawladaha kale ku hoosnoolna mas'uuliyada naga saaran Soomaalinimo ah marka intaas baan ka jawaabaynay jigjigana nidaam iyo deganaanshiyo iyo dawlad dadka Soomaalida meeshaas aad u joogto xuquuq aanay weligood helin u soo dhicisay ay joogto dawlad deegaanka Soomaalida hal dugsi sare ku ooli jiray oo asaguna ay dhigtaan ardayda dawladda Itoobiya shaqaalaheeda gobolka ka shaqeeya dhigtaan Soomaalidu aanay dhigan maantana degmo kasta dugsi sare ku yaala jaamacad 22,000 oo arday oo 90% ay Soomaaliyiin Soomaalida Soomaaliya ay ka mid tahay dhigataana waa leeyihiin deegaan kasta bar caafimaad iyo cilmiga looga sameeyay waxaan u malaynayaa waa meesha markaan joogana waa dhahay horumarka noocaas waana ku faanaynaa waan ku ammaanaynaa dadkii sameeyay waxa muhiimka ana waa nolosha qofka Soomaaliga meel walba joog siyaasaddan wax walba intaan lugaha u xirnay dadka aan ku hoojinay marmarka qaarkood inaan xag uga sii jeesan karno oo wanaaga dadka waxa uu ku jiraahay aan ammaani karna u baahan marka mashruuca booqashadii jigjigo mashruuc guuleed oo ah